assalaamu calaykum. ila dhegayso sheekadan cajiibka badan oo xikmadda badan. waxaa jiray zamannadii naga horeeyey oday waayeel ahaa. odaygaasi waayeelka ahaa waxa uu kaabo qabiil u ahaa qabaa'iladii carabtii zamannadii naga horeeyey. odaygaasi ifka waxaa u joogay 4 wiil oo dhallinyaro ahaa. odaygaasi waayeelka ahaa maalin maalmaha ka mid ah waxa uu dareemay inuu aad u gaboobay, geeridiisuna aysan ka fogayn. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu u yidhi 4tiisii carruur, waxa uuna u sheegay inuu aad u gaboobay, geeridiisuna aysan fogayn, inuu doonayo dhaxalkoodii inuu u qaybiyo ayuu u sheegay carruurtiisii. odaygii waayeelka ahaa shaqaalihiisii mid ka mid ahaa ayuu waxa uu u diray inuu u keeno 4 sanduuq oo aad u waaweyn. qofkii shaqaalaha ahaa waxa uu u keenay 4tii sanduuq. odaygii waayeelka ahaa markii la gaaray saqdii dhexe habeennimo waa uu soo kacay. sanduuq weliba waxa uu ku qoray magacyada carruurtiisa, mid welibana dhaxalkii uu ku lahaa ayuu u geliyey sanduuqa, magaciisuna waa uu ku dul qoray. markii uu waaga baryey waxa uu isugu yeeray carruurtiisii, waxa uuna u sheegay inuu aad u gaboobay, geeridiisuna aysan fogayn, uu doonayo inuu u qaybiyo dhaxalkoodii. waxa uuna u sheegay 4 sanduuq meesha taalla mid weliba magaciisa inuu ku qoran yahay. qof weliba sanduuqii magaciisa ku qoran ayuu dhaxalkiisa ku jiraa. odaygii waayeelka ahaa sidaasi ayuu u sheegay carruurtiisii, waxa uuna ku yidhi carruurteedii, dunidani waa ay kooban tahay, wax sidaasii u fog ma ahan. waxa aan doonayaa geeridaydii kadib, waayo dhaxalkiinnii waa idin qaybiyey, qof waliba sanduuqiisii ayuu ugu jiraa. waxa aan idinkula dardaarmayaa haddii aad ku heshiin weydaan qaabka dhaxalka aan idinku qaybiyey, waxa aan doonayaa in aad u tagtiin xaakim ku nool tuulooyinka naga fog. waxa uuna u sheegay magaca xaakimkaasi, balse carruurtiisii waxay ku yidhaahdeen, waa aan oggolnahay qaabka dhaxalka aad noogu qaybisay. waxaan isku dayaynaa geeridaadii kadib in aanan isdagaalin oo aanan isku buuqin ayaan isku dayaynaa. odaygii waayeelka ahaa ayaa carruurtiisa u sheegay, carruurteydii, dunidani waa ay macaan tahay, aadmiguna hantida aad ayuu u jecel yahay. waxa aan idinka doonayaa geeridayda kadib in aadan isku buuqin oo aadan fidno abuurin. haddii aad heshiin weydaan oo aad isdagaashaan, waxaad u tegaysaan xaakiimkii aan idiin sheegay. sidaasi ayuu kula dardaarmay carruurtiisii odaygii waayeelka ahaa. maalmo yar ayaa ka soo wareegatay. odaygii waayeelka ahaa tii rabbi ayaa u timid, waa uuna geeriyooday. 4tiisii carruur markii ay soo aaseen aabbahoodii, midkii ugu weynaa oo curadka ahaa waxa uu isugu wacay walaalihiisii, waxa uuna u sheegay, maanta waa in aan oofinnaa ballantii aan ka qaadnay aabbaheennii. waxa aan furaynaa sanduuqyadaani, qof weliba waxaa la doonayaa sanduuqa magaciisa ku qoran inuu furo si dhaxalkiisii uu qaato. wiilkii curadka ahaa oo ugu weynaa odaygii waayeelka ahaa ee geeriyooday, sanduuqiisii ayuu ku bilaabay, waa uuna furay, balse sanduuqii waxaa uga soo baxay seef iyo calan iyo koofiyad. intaasi ayaa uga soo baxday sanduuqii. waa uuna yaabay wiilkii curadka ahaa, dhaxalkii uu sugayey intaasi keliya in ay noqdaan. balse midkii ku xigay ayaa furay sanduuqiisii, balse isaguna waxaa uga soo baxay dhagxaan iyo ciid keliya. waa uuna la yaabay dhaxalka aabbihiisii u reebay. midkii saddexaad ayaa furay sanduuqiisii, isaguna waxaa uga soo baxay lafo qalalan. waa uuna la yaabay dhaxalka aabbihiisii u reebay. midkii ugu yaraa ee afaraad ayaa sanduuqiisii furay, waxaana uga soo baxay dahab iyo fiddo. dahab faro badan iyo fiddo faro badan ayaa ka buuxay sanduuqaasi. balse 4tii carruur meeshii ayayba isku khilaafeen oo dardaarankii aabbahoodii waa ay ilaaween oo waxay bilaabeen inay isku buuqaan, oo waxa ay la yaabeen 3 sanduuq in aysan ku jirinba wax dhaxal ah. wiilkii ugu yaraa sanduuqiisa unbaa dhaxal ku jiray. meeshaasina waxaa ka dhacay buuq faro badan. balse 4taasi carruur midkii ugu weynaa oo curadkoodii ahaa waxa uuna u sheegay aabbaheennii, waxa uu nagula dardaarmay geeridiisa kadib in aanan abuurin fidmo. waxaa la doonayaa dardaarankii aabbaheennii in aan qaadano. aabbaheennii waxa uu inoo sheegay haddii uu naga dhex dhasho buuq in aan aadno xaakiimkii uu noo tilmaamayey. 4tii carruur waxay isku diyaariyeen safar dheer oo lug ah. sahidoodii ayay diyaarsadeen, waxayna bilaabeen safarkii dheeraa ee socodka ahaa. wixii ay socdaanba markii ay ka baxeen tuuladoodii oo in badan ay ka fogaadeen, ayay waddadii ay ku socdeen waxay ku arkeen
abeeso aad u yar. Balse afartii wiil midkii ugu yaraa ayaa abeesadii ul uu sitay madaxa uga dhuftay. balse abeesadii yarayd hal mar ayay isbuufisay oo waxay isku beddeshay mid aad u weyn heer ay gaarto waddadii in ay ka xirato. balse afartii wiil abeesadii aad ayay uga naxeen oo waa ay ka carareen naftoodii ayna la baxsadeen. waa ayna ka badbaadeen abeesadaasi. socodkoodii waa uu dheeraaday ilaa ay gaaraan dhul saxaro ah. saxaradii sidii ay ugu socdeen waxa ay ku arkeen dhulkii saxaraha ahaa neef geel ah oo keligiisii dhex taagan saxaraha. balse geelaasi uma uusan ekayn geel ku nool saxarahaasi. waxa uu ekaa geel ku dhex nool meel ay barwaaqo ka jirto, waayo geelaasi waxa uu ahaa mid aad u nimcaysan. waxa uuna u ekaa mid ku nool meel baad iyo biyo ay ka buuxaan. waa ayna la yaabeen neefkaasi geela ahaa oo saxaraha dhex taagnaa iyo sida uu u nimcaysnaa. waa ay la yaabeen, waa ayna ka sii tegeen socodkoodii ayay sii wateen. wixii ay socdaanba waxay gaareen dhul barwaaqo ah oo ay ka buuxaan geedo aad u waaweyn iyo biyo faro badan. balse afartii wiil dhulkaasi waxay ku arkeen neef geel ah oo dhex taagan baad iyo biyo dhexdooda. meel barwaaqo ayuu dhex taagnaa, balse geelaasi waxa u ekaa mid tacbaan ah, aysanba nafba ku jirin. lafaha ayaa ka soo jeeday. waxa uuna ahaa geel aad acato u ah. waxa uuba u ekaa geel ku nool meel saxaro ah. waa ay la yaabeen afartii wiil, iyaga oo yaaban ayayna ka tageen. waxa ayna sii wateen lugtoodii. in muddo ah markii ay socdeen waxa ay gaareen dhul beeraley ah. dhulkaasii beeralayda ahaa waxay ku arkeen shimbir marba beer u duulaya. laba beer dhexdoodii ayuu taagnaa, marba beer ayuu dhex tegayaa. waa uu ka tegayaa oo waxa uu ku degayaa beer kale. waxay arkeen shimbirkii labadaasii beerood marba mid in uu ku degayo. middii uu ku degana waxay noqonaysay beer cagaaran, midda kalena haddii uu ku dego waxay noqonaysay beer qalalan. waa ay la yaabeen carruurtii, waa ayna ka sii socdeen oo waxay u sii socdeen bartilmaameedkoodii. wixii ay socdaanba waxa ay gaareen tuuladii ay u socdeen. waxayna arkeen gurigii loo tilmaamayey, waxayna garaaceen albaabkii guriga. waxaana ka furay oday waayeel ah oo timihiisu caddaadeen, araggiisuna uu aad u yar yahay. balse markii uu albaabka ka furay waxa ay weyddiiyeen xaakimka. balse odaygii waayeelka ahaa oo albaabka ka furayey ayaa ku yidhi, xaakimka waa walaalkayga iga weyn, waxa uuna deggan yahay guriga aniga igu dheggan. waa ay ka tageen afartii wiil oo waxay aadeen gurigii xaakimka. balse intii ay u socdeen gurigii xaakimka waxa ay ku sheekaysanayeen, xaakimka haddiiba uu ka weyn yahay odaygaani waayeelka ah, suurogal ma ahan in uu noo xukumo dhaxalka aabbaheeni, waayo odaygaani ayaaba waayeel ah. haddii uu ka sii weyn yahay waxaa laga yaabaa in uusan bahadli karin, uu yahay qof tacbaan ah oo waxna kala xukumi karin. sidaasi ayay ku sheekaysanayeen afartii wiil. balse waxay gaareen gurigii loo tilmaamayey, waxayna garaaceen albaabkii guriga. waxaana ka furay xaakimkii xaaskiisa. waxayna weyddiiyeen xaakimka, balse waxay u sheegtay in ay soo dhowaadaan oo waxa ay ku martisoortay gurigeedii. oo waxay ku tidhi, xaakimka ayaan idinku wacayaa. balse waxay ugu wacday xaakimkii. waxa uu u yimid xaakimkii afartii wiil ee dhallinyarada ahaa. waxa uuna weyddiiyey danta iyo xaajada ay ka leeyihiin. balse afartii wiil dhallinyarada ahaa midkii coradkooda ahaa ayaa xaakimka la hadlay. waxa uuna u sheegay qorshaha ay tuuladooda uga soo tageen in ay isagu weyddiiyaan hal su'aal. balse intii waddada ay soo socdeen su'aalihii waxay isku beddeleen 5 su'aal. waxa aan waddada ku soo aragnay 4 waxyaabood oo aan aad ula yaabnay. su'aashii keliya aanu soo socnay waxaa ku darsoontay 4 su'aalood, waxayna isku noqdeen 5 su'aalood. waxa aan doonaynaa in aad noogu jawaabtid 5taasii su'aalood. balse xaakimkii ayaa ku yidhi dhallinyaradii, intii karaankaygii ah waa aan idinka jawaabayaa ee i weyddiiya su'aalaha. wiilkii coradka ahaa ayaa ku yidhi qofkii xaakimka ahaa, waxa aan ka soo baxnay tuuladeennii, waxa aan soo aadnay tuuladaadii. balse intii waddada aan ku soo jirnay waxaan waddada ku aragnay abeeso aad u yar. balse walaalkeennii naga yaraa ayaa abeesadii ul la dhacay. balse abeesadii hal mar ayay isbuufisay oo waxay isku beddeshayba mid aad u weyn ilaa ay ku dhowaato inay naga xirato waddada. waa aan ka cararnay, sidaasi ayaana uga soo badbaadnay. arrinkaasi ayaan aad ula yaabnay, ayuu ku yidhi wiilkii coradka ahaa. balse xaakimkii ayaa u sheegay, abeesadaasi waxay u dhigantaa musiibo, waayo musiibadu waa ay yar tahay markii ay hurdayso, balse haddii la taabto
waxay isku beddelaysaa mid aad u weyn oo wax badan hallaysa. Wiilkii labaad ayaa weydiiyey xaakimka, waxa uuna ku yidhi, markii aan ka soo cararnay abeesadaasi in muddo ah ayaan soo socnay oo waxaan soo galnay dhul saxarro ah oo aan lahayn baad iyo biyo midna. dhulkaasi saxaraha ahaa waxaan ku aragnay neef geel ah oo aad u buuran, waxaana la yaabnay meesha uu ku nool yahay iyo sida uu u buuran yahay. balse xaakimkii ayaa uga jawaabay, waxa uuna ku yidhi, geelaasi saxaraha taagan waxa uu la mid yahay qof Ilaahay wax yar siiyey oo wax yar uu Ilaahay siiyey iimaankiisa ku qaba oo mar waliba Ilaahay ku shukrinaya oo ku qanacsan wixii yaraa uu Ilaahay siiyey. balse wiilkii saddexaad ayaa weydiiyey su'aashii saddexaad, waxa uuna ku yidhi, markii aan ka soo tagnay geelaasi saxaraha taagnaa muddo fara badan ayaan soo soconay oo waxa aan soo galnay dhul ay ka buuxaan baad iyo biyo. dhulkaasi waxaan ku aragnay neef geel ah oo caato badan oo aad u qalalan. waa aan la yaabnay meesha uu dhex taagan yahay iyo sida uu gaajaysan yahay. balse qofkii xaakimka ahaa ayaa uga jawaabay, waxa uuna ku yidhi, geelaasi oo dhex taagan baadka iyo biyaha waxa uu la mid yahay qof Ilaahay nimco badan siiyey balse nimcadaasi uusan ku shukrinaynin. balse wiilkii afaraad ayaa weydiiyey xaakimkii su'aashii afaraad, waxa uuna ku yidhi, markii aan ka soo tagnay geelaasi oo dhex taagnaa baadka iyo biyaha muddo fara badan ayaan soo socnay oo waxa aan soo dhex galnay dhul beeraley ah, balse beerahaasi waxaan ku dhex aragnay shimbir oo marba beer u duulaya. 2 beerood dhexdoodii ayuu taagnaa, marba waa uu duulayey. labadaasii beerood mid ka mid ah ayuu ku degayey. beertii uu ku degana mid waa ay qalalaysay, haddii uu ka soo duulo midda kale uu ku degana waxa isku beddelaysay mid cagaaran. arrinkaasi ayaan la yaabnay ayuu ku yidhi. balse xaakimkii ayaa uga jawaabay, waxa uuna yidhi, shimbirkaasi waxa uu la mid yahay qof 2 xaas leh. haddii uu reer u hooydana habeenkaasi reerkaasi waa uu qanacsan yahay, balse reerkii uu ka soo tegey aad ayuu u caraysan yahay. balse haddii uu ka soo tego oo reerkaani kale uu yimaado, reerkii uu ka soo tegayey ayaa u caroonaya oo waxaa qancaya reerka uu u yimid. shimbirkaasi oo labadaasii beerood u dhexeeya oo marba beer ku deganaya waxa uu la mid yahay qof 2 xaas leh. balse wiilkii coradka ahaa ayaa weydiiyey xaakimkii, waxa uuna ku yidhi, waxaa la gaaray su'aashii aan uga soo baxnay gurigeennii. balse xaakimkii ayaa ku yidhi, haddii aan awoodo waa aan kaaga jawaabayaa ee i weydii ayuu ku yidhi xaakimkii. balse wiilkii coradka ahaa ayaa u sheegay xaakimkii, aabbaheeni tuulada aan degganayn ayuu ka ahaa kaabo qabiil. waa uu geeriyooday, balse inta uusan geeriyoonin ka hor ayuu nala dardaarmay. waxa uuna noo sheegay in uu noo qaybiyey dhaxalkeennii, balse waxa uu noo sheegay haddii aan isu khilaafno dhaxalkaasi in aan adiga kuu imaano. aabbaheenii geeriyooday ayaa noo soo kaa tilmaamay. balse xaakimkii ayaa ku yidhi, bal ii sheega sida ay wax u jiraan. wiilkii coradka ahaa ayaa ku yidhi, aabbaheeni inta uusan geeriyoonin ka hor waxa uu noo qaybiyey dhaxalkeennii, waxa uuna noogu shubay 4 sanduuq. waxa uuna noo sheegay qof walba dhaxalkiisii inuu ugu jiro sanduuqa magaciisa ku qoran. balse waxa uu nagu amray intii uu nool yahay in aanan la furi karin sanduuqyadaasi. balse geeridiisii kadib ayaan furnay sanduuqyadii. aniga ayaana bilaabay sanduuqii aan furay oo magacaygii ku qornaa waxaa iga soo baxay seef iyo koofiyad iyo calanka qabaa'ilka. waa aan la yaabay dhaxalkaygii. intaasi keliya in uu noqday aad baan ula yaabay. balse waxaa hadlay wiilkii ku xigay, waxa uuna u sheegay xaakimkii, aniguna sanduuqii magacaygii ku qornaa ayaan furay oo waxa aan ku dhex arkay ciid iyo dhagxaan keliya. waa aan la yaabay dhaxalka aabbahaygii iiga tegey. balse wiilkii saddexaad ayaa hadlay, waxa uuna ku yidhi xaakimkii, aniguna waxa aan furay sanduuqii magacayga ku qornaa, balse markii aan furayba waxa aan arkay sanduuqa in ay ku jiraan lafo qalalan. waa aan la yaabay aabbahaygii waxa uu dhaxal ahaan ii siiyey, aad baan ula yaabay. waxaa hadlay wiilkii ugu yaraa ee afaraad, waxa uuna u sheegay xaakimkii, aniguna markii aan furay sanduuqii magacayga ku qornaa waxa aan ku arkay dahab fara badan iyo fidbo fara badan. balse xaakimkii ayaa uga jawaabay, waxa uuna ku yidhi, aabbihiinnii si wanaag badan oo sharaf badan ayuu idinku qaybiyey dhaxalkiinnii, balse adinku waa aad garan weydeen. balse wiilkii coradka ahaa ayaa ku yidhi xaakimkii, oo sidee ayuu noogu qaybiyey anigu dhaxalkaygii? ma seeftaasi iyo koofiyaddaasi iyo calankaasi keliya? midkii labaadna waxa uu yidhi, aniguna dhaxalkaygii
maciidaasi iyo dhagxaantaasi keliya. kii saddexaad ayaa ku yidhi aniguna dhaxalkaygii lafahaasi qalalan miya? balse xaakimkii ayaa uga jawaabay midkii curadka ahaa, waxa uuna u sheegay adigu aabbahaadii sanduuqaadii waxa uu ku qoray magacaadii, waxa uuna kuu geliyey seef, calan iyo koofiyad. waxay la dhigantaa xukunkii aabbahaadii uu hayey inaad adigu la wareegtay oo booskii aabbahaadii adigu aad ku jirtid, oo maalintii aabbahaadii geeriyoonayey kadib in aad tahay kaabo qabiilka u taagan qabaa'ilka oo idil. wiilkii curadka ahaa dhaxalkiisii saxda ahaa markii loo sheegay aad ayuu uga farxay, waa uuna dhoola caddeeyey. xaakimkii ayaa la hadlay wiilkii labaad, waxa uuna ku yidhi adigu aabbahaadii sanduuqa magacaadii uu kuugu qoray waxaa kaaga soo baxay dhagxaan iyo ciid keliya, balse adigu waa aad fahmi weyday oo waa aad garan weyday dhaxalkaadii. aabbahaadii waxa uu la jeedaa ciiddu, waxa uu la jeedaa wixii dhuul ah uu isagu leeyahay inaad adigu dhaxashay. dhagxaantuna waxa uu la jeedaa wixii qasriyo ah iyo dhismo ah isagu uu leeyahay inaad adigu dhaxashay. aabbahaadii sidaasi ayuu ula jeeday, balse adigu waa aad garan weyday. wiilkii labaad aad ayuu uga farxay dhaxalka isagu uu helay. xaakimkii waxa uu la hadlay wiilkii saddexaad, waxa uuna ku yidhi adigu aabbahaadii sanduuqaadii magacaagii ayuu kuugu qoray, balse sanduuqaadii waxaa kaaga soo baxay lafo qalalan. waa aadna la yaabtay, waayo dhaxalkii aabbahaagii kaaga tegey waa aad garan weyday oo waxa aad moodday lafo keliya inuu kaaga tegay aabbahaadii, balse lafahaasi waxa uu la jeedaa wixii xoolo ah amase nimcooley ah sida lo'da, geela iyo ariga intii uu aabbahaadii lahaa adigu inaad dhaxashay. waayo xoolihii oo idil oo aabbihiisii lahaa sida geela, ariga, lo'da dhammaantoodii inuu isagu dhaxlay ayaa loo sheegay. aad ayuuna ugu farxay arrinkaasi. wiilkii afaraadna waxa uu sheegay xaakimkii adigu aabbahaadii sanduuqaagii ayuu magacaagii ku qoray, balse markii aad furtay waxa aad ku dhex aragtay dahab faro badan iyo fidbo faro badan, balse sidaasi ay tahay aabbahaagii waxa uu ogaa inaad adigu ugu yar tahay walaalahaagii, sidaasi aaweedii ma aad awoodid xoolahaasi inaad maarayso. sidoo kale guryahaasi inaad maarayso ma aad awoodid, sidoo kale in aad xukunka kala wareegtid aabbahaadii ma aad awoodid, balse aabbahaadii waa uu kuu fududeeyey oo lacagtii oo diyaarsan ayuu kuugu shibay sanduuqaadii. waxa uuna u sheegay afartii wiil aabbahoodii si cadaalad ah oo wanaag badan inuu ugu qaybiyey dhaxalkoodii. afartoodiina iyaga oo qoslaya oo ku qanacsan ayay si wanaagsan u qaateen hadalkii xigmadda badnaa ee xaakimka u sheegay. balse wiilkii coradka ahaa ayaa weydiiyey xaakimkii, waxa uuna ku yidhi waxaan ku weydiin rabaa arrin aan khusaynin su'aalaha annagu aan wadanay. balse xaakimkii ayaa ku yidhi waa aad i weydiin kartaa. waxa uu ku yidhi wiilkii coradka ahaa markii aan soo galnay tuuladaanii waxaan garaacnay guriga walaalkaadii kaa yaraa, balse walaalkaadii kaa yaraa waa oday waayeel ah, araggiisuna waa uu yar yahay. waxa uuna noo sheegay adigu inaad tahay walaalkiisii ka weyn, waxa aad tahay qof u eg dhallinyaro, walaalkaadii kaa yarna waa uu gaboobay. sidee arrinkaasi uu ku dhici karaa ayuu ku yidhi wiilkii coradka ahaa xaakimka. balse xaakimkii ayaa dhoola caddeeyey, waa uuna ku qoslay wiilkaasi. waxa uuna u sheegay walaalkiisii ka yar in uu qabo xaas aad u xun oo mar waliba dhibta noloshana ku ciriirisa, cimrigiisuna iyada ayaa soo laalaabtay ayuu ku yidhi. balse anigu xaaskaygii ma dhib badna, mar weliba waa i daryeeshaa, waxa ay da'daydu ay u weyn tahay, muuqaalkaygiina uu u yaraaday. waa arrinkaasi. balse afartii wiil ee dhallinyarada ahaa iyagoo aad u faraxsan oo qanacsan, dhaxalkoodiina ku qanacsan ayay ka soo laabteen gurigii xaakimka oo waxay u laabteen tuuladoodii. sheekadaani waxaa qoray qoraayaalkii qadiimiga ahaa ee carabtii hore. sheekadii yaraydna intahay inoo joogto. walaalaha ku xiran janalka Cabdixakiin Bro, fiidiyogan haddaad ka hesheen waxaan idinka codsanaynaa janalka inaad noo like garaysaan, aad sheer garaysaan, sabskaraabna aad dhahdaan. mahadsanidin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.